dagaal culus oo u dhaxeeya Somaliland iyo SSC Khaatumo oo mar kale ka qarxay gobolka Sool. habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aan caawa idin hayana waxa kamid ah dagaal culus oo u dhaxeeya Somaliland iyo SSC Khaatumo oo mar kale ka qarxay gobolka Sool. Itoobiya oo duqeymo culus ka geysatay gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale waxaan idin hayaa ciidanka Puntland oo fariin adag u diray cidii ka daba hadasha dadka lagu tuunsan yahay inay la shaqeeyaan kooxda Daesh oo ciidamada Puntland soo xiraaneen. qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaan idin hayaa, balse marka hore waxaan ka codsanayaa in YouTube-ka ay ku soo biirtaan, subscribe dhahdaan, muuqaalka like saartaan, sidoo kalena gabareelka furtaanin si ay ku soo gaaraanin warbixinada maalinlaha ah ee halkan ku soo gudbino. haddii aan ku bilaabo dagaalo u dhaxeeya ciidamada SSC Khaatumo iyo kuwa maamulka Somaliland ayaa maanta ka qarxay deegaanka Boqorkeyn oo ah goobaha ay isku horfadhiyeen ciidamada labada dhinac ilaa iyo 2023. dagaalkan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada muujinayeen maxaabiis iyo gaadiid la sheegay in laga qabsaday ciidamada Somaliland, inkastoo aysan jirin warar labada dhinac ka madax bannaan oo halkaasi laga heli karo ilaa iyo hadda. ciidamada Somaliland ayaa maanta weerar dhowr jiha ku qaaday difaacyadii hore ee ciidamada SSC Khaatumo sida ay sheegeen maamulka SSC Khaatumo. khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa laga soo sheegaya dagaalkaas, inkastoo aanay weli faahfaahin sugan aysan bixin labada dhinac oo ku saabsan dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay dagaalkii maanta halkaasi ka dhacay. dhanka kale maamulka SSC Khaatumo oo war ka soo saaray dagaalkan ayaa Somaliland ku eedeeyay inay iyagu ka dameeyeen ama mas'uuliyadiisa ay leeyihiin dagaalkii maanta halkaas ka dhacay. waxa ay SSC Khaatumo sheegeen inay iska difaaceen weeraradii ay ciidamada Somaliland ay halkaasi ku soo qaadeen. dhanka kale ciidamada SSC Khaatumo oo muuqaalo iska soo duubay ayaa sheegay ama muuqaalada ay baahiyeen waxa laga dhex arkayay maxaabiis laga qabsaday Somaliland walow aysan faahfaahin aysan bixin ama aysan weli dagaalkaasi ka hadlin maamulka Somaliland oo la sheegay in maanta laga qabsaday gaadiid iyo sidoo kale maxaabiis tiro badan. dhanka kale ciidamada maamulka Somaliland oo iyagu muuqaal iska soo duubayay ayaa iyaguna waxa ay sheegeen ama soo bandhigeen gawaari ay kala wareegeen maamulkaasi ama maamulka SSC Khaatumo haddii aan dhaho. dhanka kale booliiska Puntland oo ka hadlay xaaladda dagaal ee Puntland ayaa sheegay inay qabanayaan qof walba oo ay ka shakiyaanin wuxuu doon ha ahaadee macallin nabadoon iyo cid walba oo ay ka shakiyaanin. waxa ay sheegeen inay qaban doonaan isla markaasna ay xiri doonaanin. afhayeenka ciidamada booliiska Puntland waxa uu sheegay inay Puntland dagaal ku jirto cid kasta oo laga shakiyana la xiri doono. sidoo kalena shacabka Puntland ayaa loogu baaqay in cidii ay dawladdu xirto aysan ka soo daba hadli karin. qof walba oo ciidamada dawladda Puntland ka shakiyaanin waa ay xirayaanin, baaritaan ayaana lagu sameyn doonaa. haddii wax lagu helo waxa la horkeeni doonaa laamaha cadaaladda Puntland ayuu yiri afhayeenka ciidamada dawladda Puntland oo warbaahinta la hadlay. dhawaan ayay ahayd markii booliiska Puntland ay xireen 3 nin oo ay ku jiraanin macallimiin wax ka dhigi jiray qaar ka mid ah dugsiyada magaalada Garowe, waxaana jira macallimiin iyo dad kale oo shacab ah oo arintaasi banaanbaxyo ka sameeyay iyaga oo dalbanayay in la soo sidaayo macallimiintaas la xiray. balse afhayeenka ciidamada dawladda Puntland ayaa sheegay inay xiri doonaanin cid walba oo ay ka shakiyaanin maadaama Puntland ay ku jirto dagaal culus oo ka dhan ah kooxda Daesh ee ku dhumaaleysata buuraha Calmiskaad ayna firxadkoodii ay ku jiraanin ama ay ku kala firxadeen magaalooyinka iyo sidoo kale deegaanada Puntland ayuu sheegay. sidoo kale waxa uu sheegay afhayeenku inay jiraanin dad badan oo magaalooyinka Puntland jooga oo siyaabo kala duwan ula shaqeyn jiray kooxda Daesh. sidaas darteed waxa uu sheegay in cid kasta oo ay ka shakiyaanin ciidamada ama laamaha ammaanku ay ka shakiyaanin ay xiri doonaanin, baaritaanna ay ku sameyn doonaanin. dhanka kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa markii u horeysay shaaciyay in diyaaradaha Itoobiya ay duqeymo ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe.
wasiirka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in diyaaraduhu gantaalo la dhaceen deegaano ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab balse ma uusan sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeymahaas isagoo sheegay in duqeymaha ay fuliyeen ciidamada Itoobiya ay ahaayeen kuwa ay hagayeen dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu xusay in aysan suurtagal ahayn in duqeymo laga fuliyo gudaha Soomaaliya iyadoo aan la ogeysiin dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku heshiiyeen iskaashi amni gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab isaga oo tilmaamay in heshiiskii Ankara uu qeexayo wada shaqeynta labada dal dhinaca ammaanka waana markii ugu horeysay ay diyaaradaha dagaalka Itoobiya ay duqeymo ka fuliyaanin gudaha Soomaaliya